asagana cuqdad daarood la dhuhu qabay dhalinyarada uu laayeen 95% waa daarood xabaalo waxa Liibiya ku yaala xataa uu ola baxay xabaalaha boosaaso uu ola baxay baa Liibiya ku yaala subhanallah qirxin jiray uu leyn jiray uu xasuuqi jiray waa daarood anuu meesha waxa soo maray 2017 koo waxaan ku soo maray xoosh la yiraahdo nin Cabdicasiis la yiraahdo uu haysto oo oran jiray oo Jabuutiyana iyo wiilal kale midmaana iyo mid daarood ay ka shaqeyn jireen ayagu dadka u leeyahaayeen ka Soomaaliga Jabuutiyaanka ahna uu lacagta badan ka qaato marka la baxnay waxaana la geeyay meel Kanada la dhaho oo lagu sugo doonta kadibna meeshii baa nala ka dhacay ninkan groupkii haystay baa nagatay 6 bay nagala baxay lacag ay naga qaateen dib nooga qaateen nin Eletriyana oo Binwali la yiraahdo yu ninkan u shaqeyn jiray adoon uu ahaa ku xigeenkiisa dadka uu Soomaalida u adeegsan jiray oo u garaaci jiray oo u dhici jiray ninkan wuxuu ahaa sidaan maqlay anigu maana soo gaarin asagoo adoon la haysto oo xiran oo lacag la goostay lacag lagu eedaynayo baan anigu ugu imid meesha waliid soo kaxeeyay waliid baa soo xirtay asagoo xir ku ah Binwali oo madaxa laga garaaco oo la qadiyo yaan anigu u imid ninkan marka wareystayna waxa la igu yiri ninkan waa nin xun Soomaali badan buu laayay meesha waxa ka jirtay dhalinyarada Buntland ka timaada oo daaroodka yaa badana lacagaha la horbixi jiray asagana cuqdad daarood la dhuhu qabay dhalinyarada uu laayeen 95% waa daarood xabaalo waxa Liibiya ku yaala xataa uu ola baxay xabaalaha boosaaso uu ola baxay baa Liibiya ku yaala subhanallah qirxin jiray uu leyn jiray uu xasuuqi jiray waa daarood balse naagaha uu ilmaha ka dhalay majority-gooda waa beesha uu ka dhashay oo abgaal wuxuu oran jiray ilmahayga naagan eedadood ahayn kuma aaminayo minadayda kuma shubaya naag shisheeya ina adeertay baa ii dhaliso ii korinayso oran jiray reerkaasay u badnaayeen gabdhaha uu wax ka dhalay oo Yurub uu soo galiyay asagana kuwaas bilaash ku soo deyn jiray oo markay gabadhu xaamilo noqoto 8 bilood ay gaadho yu doonta taaga soo saari jiray nasiibkeeda tii sagaal ku gaadha laakiin dadka uu leyn jiray majority 80% daarood bay ahaayeen xabaalahana boosaaso u bixiyay dadkana wuxuu ku goodin jiray boosaasan idinku aasiya wallahi billahi qofkii hadalkeena intuu lacagta la baxaan yu kibir ku maagi jiray oo dili jiray wixii baa la ogaaday Liibiyaankii baa sheekadii ku fahmay lacago dheeraad uu ka qaadi jiray oo debela markii kuwaas lacag siiyaan ilaa asaga koonka Muqdisho lacagta lagu shubayay haya lacag la soo baxay yaa waxa la oran jiray lacag kale oo xoog awriya baada ku dir Muqdisho dadku ma wada hayaan qofka dhahama hayo wuxuu sameyn jiray tuu la buxu dili jiray walaal Kawsare walaal horta waa arin argagixiisa la walaal su'aal baan Kawsare ku su'aaliya Kawsare walaal maxaad ku keentay dumarku uuran jiray abgaal bay u badnaayeen asaga oran jiray afkiisa ka qaaday walaal ما أصلا أورن شري أنا مركي ونلاحظ ما حتى دل يراب دم بهرتي إذا معلوك وريسيني سي أنا وين فدي إستاج وح أورن شري ناقش الشايعه ويجا عرسنا يسا مركي يورو تكتو المهيجا عم قال يسيني سا مويدي لي السبب أورن شري هذين بدنا أنا وح أورن شري هذا بلا يركود رويجا سوري ديان المها